la joojina ana waxa waaye diyaar u ah maantayna waxa waaye ciidamada wixii ay qabteen ee xaflad joojinta aadaan ugu mahad celinayna wax allaale wixii calanka wado beerta ku jirana waa in laga saaraa because intuu Sakariye Nuur Saajin abaabilku oo wado wax dhacay male annaga Soomaaliland waxa degdeg hadda isoo gaaraya in xaflad loo qaban qaabinayay sanad guurada 18 May ee ay Somaliland ku qabsan rabtay magaalada Muqdisho ama caasimadda Soomaaliya taasi oo aan weligeed dhicin intii ay madax banaanida raadinaysay Somaliland in aanan la iska hor istaagin qabashadeeda xafladda Somaliland balse tani ayaa waxa ay keenaysaa si ay gabadha u cadeysay TV-ga SMS Somali TV si ay ugu cadeysay ayada in isku dhac uu ku yimid ururkii Irir Soomaali ay wada jir ahaan ugu midowsanaayeen beelaha ka dhashay Irir Soomaali sida warbixintii igu soo gaartay ee la ii soo diray ayaa xafladaasi waxa sabab u noqotay in la baajiyo qaab qabiileed oo isla markaasi kaliftay in isku fahmi waa masiirka Irir Soomaali darteed in loo qaban waayay 18 May haddaba gabadhii TV-ga warbaahintaasi ka sii deysay sida asxaabteeda ay igu soo direen oo aan halkaani uga mahad celinayo siday muuqaalka igula soo wadaageen ayaan waxaan rabaa inaan halkaani idinla soo wadaago taasi oo caqabad tii ugu horeysay ku noqotay in la iska hor istaago in xaflad Somaliland ay Muqdisho ku qabanayso burburkii Soomaaliya ilaa iyo haatan aysan weligeed dhicin taasoo caawa noqotay midii ugu horeysay ee ka dhacdo magaalada Muqdisho ama caasimadda Soomaaliya haddaba sababta keentay in xafladan la baajiyo 18 May ayaa waxa ay cadeynaysaa gabadhaani oo ay ka hadlaysaa marka sababaha ay ku aaneynayso in xafladani ay u qabsoomi weysay jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland ayaa waxa ay cadeynaysaa halkan ayaan idinkaga soo deynayaa sida muuqaalku uu igu soo gaaray oo asxaabteeda igu soo direen bal inala daawada sidoo kale tana muuqaalka inoo share gareeya inuu horboodo oo gabar walbo hawiya lacagteeda ku niikanay lacagteedan lagu dhigaamay annaga meesha hiil walaalana waday nahay oo joogna ina maamulka annaga wadan muqdisho munaasabad midii ugu horeysay oo caynkan oo kala ah oo la rajeynayay in lagu qabto halkan isla markaana dadweyne fara badan ay ka qayb gali lahaayeen ayaa booliiska Soomaaliya gabi ahaanba ay joojiyeen waxaana beerta nabadda ee Muqdisho soo buux dhaafiyay dhalinyaro fara badan oo wata calanka Somaliland isla markaana doonayay in munaasabadaas ay ka qayb galaan sidoo kale warar hoose oo aan dadka qaar ka helnay isla markaana ay noo xaqiijiyeen ay sheegayaan in uu jiro khilaaf ka dhaxeeyo dadka reer Somaliland ee munaasabadan abaabulayo iyo sidoo kale kuwa reer Muqdisho waxaana barnaamijku uu isku bedelay qabiil kadib markii dadkii labada dhinac kala metelayay ay dhaxdooda khilaaf uu ku yimiday waxa inoo waramay mid kamida dadka barnaamijkan abaabulayay waxayna ka hadashay khilaaf iyo sidoo kale waxa munaasabadan baajiyay munaasabada horta waa idin salaamaya kasoo qaybgalkiina aad aan ugu faraxsanahay waxa baajiyo oo koow waxa la tahay ninka Sakariye Saajin la dhahay aniga waxaan kamid ahay dadkii Irir Soomaali oo halkaas Hargeysa tagay markaan Hargeysa joogna anaga marti waxaan u ahayn isaaqa inta u fadhinay wax walba iyo meel walba na la geynay Sakariye xagga markaan tagna anaga marti oo naga dhigay maanta anagoo hawiya oo haddana boqorkii Irir Soomaalina maanta hawiye ka dhashay haddana waxa waaye gobolkii Baraandiri joogno laf dhawarkii Irir Soomaalina maanta inuu nooga dambeeyay ahayd Sakariye maanta inuu cirtigeena anaga ku gafo xaq uma lihin ma fahant in la joojina ana waxa waaye diyaar u ah maantayna waxa waaye ciidamada wixii ay qabteen ee xaflad joojinta aadaan ugu mahad celinayna wax allaale wixii calanka wado beerta ku jirana waa in laga saaraa because intuu Sakariye Nuur Saajin abaabilku oo wado wax dhacay male annaga Soomaaliland waa jecelnahay walaaladeen waa
waxaa la rabaa wax walboo dhacay maanta annaga hawiyaanahay curudka hawiyaanahay waxaa laga rabaa inuu annaga noo daba fadhiisto ma ahayn asiga inuu nu horboodo haddana cirtigeena iyo cirtiga gabdhaha inuu horboodo oo dhaa gabar walboo hawiyaa lacagtayda ku niikanay lacagtaydaan lagu dhigaa maya annaga meesha hiil walaalaana waday irir samaalaan nahay dad dhaliyo keentaan nahay dad waxaa waay maanta urur isku dega amba dad isku dhoodhoo ma ahayn qadiyadii aan rabnay inaan ula dabaaldegno ee dhiimaydii jabuutina waxaa waay xornimadeeda wax yaraa ka dhiman inaan la dabaaldegno sakariye nuur saajin maanta inuu noo gafa ma ahayn haddii sakariye nuur saajin waa ninkiina raacay oo xagga joogay xataa annagoo nala soo raaci rabo waxaa loo reebtay somalilantaa waxaa looga haystay qallaaso iyo wuxuu ka sameeyey ma fahanta dembiyaa xagga ka yiil hadda markuu yimaado annagoo ee dhiigeena wadno si qurux badan u dhigeyno lambar 4 lagu dhigi lahaay ayuuna soo horbooday marka intuu asigana horbooday reer somaliland hanaga raali noqdaan wax la dhigaaya ma lahan askarteena imaatay inaba sugudeena joogtana waa u mahad celin dadkii muqdisho iska daa annagoo hawiyihii nahay oo joogna inaan maamulka annaga wadana ahayd sakariye maanta xaq wuxuu lahaa annaga inuu nooga dambeeyo inuu na horboodo maanta ma lahayn aad baa u mahadsan tahay muuqaalka haddii aad soo daawatay fadlan noo sheer garay sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan oga faa'iidaysto asxaabta ee halkaa igu xiran ee ka mid ah soomaalida shanta soomaali ee ka mid ah ayaa waxaan caawana xafladani ayagana habeenkoodii la wadaagaya oo aan leeyahay habeenkiinu ha idin wacnaado jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland aad iyo aad baan idin jeclahay one love aad u mahadsantihiin dhammaan asxaabta halkaa igu xiran ee reer Somaliland waxaan idin leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ku waara